mid kale ayuu guuraa waa dhacdaa xaalado fara badan oo soo maray inuu ka madhnaado laakiin waxaa jira saddex xaaladood oo qofka bani aadamka ay aanu ka madhnaan karin oo in laga helo saddexdaa qaar ka mida ay tahay lagama fursadaan saddexdaa xaaladood waxay yihiin nicmatun xaasila nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo xagga alla uga timi wa musiibatun xaaditha iyo musiibo balaayo iyo dhibaato iyadana ilaahay uu qadaray oo dhacday wa dembun xaasil iyo dembi iyo khalad addoonku uu galo ha noqdo faral ilaah uu ka gaabiyey ama uu dayacay ama wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay oo u diido addoonku uu sameeyey saddexdaa xaaladood qofku kama wada madhnaan karo lama odhan karo wuxuu ku jiraa xaalad saddexdaasiba ay ka maqan yihiin oo nicmo aanu haysan musiibo iyo dhibaato ilaahay u qadar oo ku dhacdayna aanay jirin wax dembi iyo khalad ka soo fulayaana aanu jirin taasi dhici mayso saddexdaasi xaaladood ee insaanka laasimka u ah yataqallabu baynaha iyada uu dhex guurguuraayo marba miduu ku sifoobayo kunana kuwa ku kulmana noqon kara waxaa muhima bima yuqaabiluha alcabd lmuslim addoonka muslimkaa muxuu ku qaabilayaa saddexdaa xaaladood addoomuhu waxa ay ku kala tegeen oo kuwo khasaare iyo kuwo guulaysta ay ugu qaybsameen kuwa ilaahay subxaana wa tacaala raalli uu ka noqday iyo kuwa rabbi uu cadhooday saddexdaa xaaladood waxa ay ku qaabileen iyo waxa ay kaga jawaabeen waajibku waxa weeye ashukru cala nicma nicmada ilaahay addoonka uu siiyo ilahay inu uga mahadnaqo bilqalbi wallisaani waljawaarix qalbigu nicmada waa inuu yaqiinsado xagga ilaahayna ka timi allah subxaana wa tacaala u qiro u ictiraafo allaha nicmada bixiye waa inuu jeclaado waa inuu weyneeyo waa inuu u dulloobo u khuduuco hayin u hoggaansan ilaahay waa inuu noqdo carabka waa in ilaahay looga mahadnaqo allah nicmada bixiye la ammaano magacyadiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan lagu sheego xubnuhuna ilaahay waa inay u mahadnaqaan taasoo ku imanaysa nicmada ilaahay inay uga faa'idaystaan daacada ilaahay iyo wax ilaahay u dhoweeye saay aakhirana u noqdo ay ka digtoonaadaan ay iska ilaaliyaan ilaahay nicmadiisa inay ku caasiyaan macsiyat llahi subxaana wa tacaala binicamihi musiibada addoonka waxaa kala gudboon alsabru calayha inuu u sabro qadarkaa ilaahay aanu isu cadhaysiin carabkana aanu kaga hadal waxaanu ilaahay ogolayn xubnihiisuna qadarka ilaahay u xanuujiyaa marka uu ku dhaco waa inaanay samayn wax sharciga ilaahay khilaafsan oo ay ka mid tahay baroorta dumarku ay sameeyaan iyo waxaa lamidka ah waxaa kaloo musiibadu addoonka ay uga baahan tahay tajalud waintidaaru lfaraji min allahi subxaana wa tacaala musiiba addoonka marka ay ku dhacdo waa inaanu markiiba isdhiibin ilaahay farajkiisa iyo raxmaddiisana waa inaanu ka quusan waa inuu farajka xagga ilaahay ka sugo allah subxaana wa tacaala baryadiisa isdhuldhigu uu la socdo iyo faqri iyo baahi muujintuna waa inaanu marnaba ka goyn arrinka saddexaad oo ah dembiga iyo macsiyada addoonka ka dhacaysa waajib waxaa kuwa an yastakfira minhu wayatuub inuu ilaahay subxaana wa tacaala asturaad iyo dhaafitaan weydiisto dembigana waa inuu ka soo noqdo xagga ilaahay subxaana wa tacaala usoo laabto waxaa kaloo taa raacaysa addoonka dembigiisu hadduu yahay dembi weyn ama fara badan oo muddo uu soo waday taasi waa inaanay sabab u noqon ilaahay raxmaddiisa iyo dhaafitaankiisa inuu ka quusto
dabeetana shaydaanku uu ku hayo jeelka dunuubta iyo macaasida oo uu ku yidhaahdo nin qoyan biyo iskama dhowro, adiga ilaahay kaa toobad aqbali maayo, waxna lagu dhaafi maayo, xumaanta iyo macsiyada halkii kasii wata. addoonka haddii saddexdaa arrimood laga helo, shukrun cala anicma wa sabrun cala albaliya wa istikfaaru min almacsiya, addoonkaasi addoon guulaysta weeye adduun iyo aakhiraba. waa ka yidhahda alimaam almujadid raximah llahu tacaala: وأsأل الlaه an yجcalka miman إida cطya shakr وإida اbtuliya صbr وإida أdنب اsتغfr faإna haؤulaaءi الثaلاث cunwaan السaعاadة في الqawaacid الأربع. allah waxaan ku weydiinayaa inaad noqoto mid ilaahay markuu nicmo siiya ka mahadnaqa, marka la imtixaamana sabra, markuu dembaabana toobad keeno ilahay dembi dhaaf weydiista. saddexdaasi arrimood, allah oo nicmada looga mahadnaqo, qadarkiisana loo sabro, dembiga iyo macsiyadana allah laga baryo inuu dhaafo oo uu cafiyo addoonka, lagana toobad keenaa, waxay cinwaan u yihiin iyo calaamad lagu garto asacaada oo alxayaatu ayiba fi daarayn, nolosha wanaagsan labada daarood addoonku inuu ku helo adduunyada maalmaha uu joogo nolol wanaagsan oo ilaahay raalli gelinaysa, nolol wanaagsan oo aakhirana sababu noqota inuu helo, aakhirana inuu ka mid noqdo kuwa jannada ku guulaysta, naartana ilaahay uu ka fogeeyo. ilaahay uu uhi faman zuxzixa can الnaari waudkila اljannata faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ilaa mataacu lguruur. guusha noocaasa ayuu shaydaanku kala dagaalamayaa bani aadamka, wuxuu sabab ugu noqonayaa an yasdaruu nicmat اllahi calayhim, ilaahay nicmadiisa inay yaraystaan oo dabeetana ay ku qanci waayaan oo xalaasha xaaraan ay uga tallaabaan. allah nicmadiisa inay yaraystaan oo allihii nicmada siiye ay u mahadnaqi waayaan oo nicmadii ay kaga jawaabaan macsiyo iyo wax ilaahay subxaana watacaala ka cadhaysiinaya. labada arrimoodoo kale, masaa'ibta adduunyo iyo dembiyada, wuxuu isku dayayaa shaydaanku labadaas sababtooda addoonka inuu quus ku rido oo ilaahay raxmaddiisa iyo farajkiisa uu ka quusiiyo oo uu ku idhaahdo balaayadan iyo musiibadan iyo dhibaatadan kugu dhacda weligaa laga dulqaadi maayo, isdhib, waxbana duca iyo baryo iyo faraj xagga ilaahay aad ka sugto ha isku daalina, waxna ha toobad keenina dunuubta iyo macaasida halkaa ka sii wad, kollo adiga lagaa toobad aqbali maayo. waa wacdun kaadib, waa yabo iyo ballanqaad beena. wa wacd llahi subxaana watacaala xaqu wa sidqun, allahna subxaana watacaala yabohiisa iyo ballanqaadkiisu waa xaq, waa dhab, waana run. wallahu laa yukhlifu lmiicaad, ilahay wuxuu ballan qaadana ma baajiyo. allah subxaana watacaala maadaama uu og yahay cadowgaasi inuu insaanka kula dadaalayo raxmadda ilaahay iyo farajkiisa iyo towbad aqbalka inuu ka quusto, ilaahay arrinta noocaasa waa inaga waaniyey. allah subxaana watacaala wuxuu ina amray, in kasta oo dembiyadu ay badan yihiin oo ay waaweyn yihiin, mar haddii qofka weli naftu aanay ka bixin, qoraxduna aanay ka soo bixin halkaa maanta ay ka dhacdo, inuu ilaahay u toobad keeno, albaabka towbaduna u furan yahay. qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. waxaad tiraa nebi maxamedow, addoomaha nafahooda ku gaboodfalay, waddo aanu ilaahay u ogolayn mariyey, meel aanu ilaahay raalli uga ahayn geeyey, halkuu ilaahay uga yeedhay keeni waayey, wuxuu ilaahay u diray dayacay, wuxuu ilaahay subxaana watacaala u diidayna sameeyey. laa taqnatuu min raxmat illah, inkastoo xaaladiinu ay xun tahay oo ilaahay aanay raalli gelinahayn, laakin lakum rabbun raxiim yakfiru dunuub,
waxaad leedihiin rabbi raxmad waasica ku sifaysan oo khalqigiisa soo gaadha. waxaad leedihiin rabbi addoomaha dambaabay ee toobadkeena ka toobad aqbala bal towbadooda ku jeclaanaya. in allaha yuxibu الtawaabiina wa yuxibu اlmutatahiriin, towbadooda ku farxaaya. lallahu afraxu bitowbati cabdihi min axadikum. rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi allah towbadda addoonkiisa waa kaga farxitaan og yahay midkiina oo gaadiidkii uu watay ee sahaydu ay u saarayd uu ka lumay oo markuu quustay ee geeri uu isu dhiibay faraj ilaahay uu keenay oo arkay gaadiidkii oo dul taagan. kaasi siduu u farxo si ka daran buu ilaahay ugu farxaa addoonkiisa toobad keena ee ilaahay subxaana wa tacaala khaladka iyo fogaanshaha uu ka fogaaday uga soo noqda. allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa taqnatuu min raxmat illaah, allah raxmadiisa ha ka quusanina oo ay ka mid tahay inuu idin dembi dhaafo idin cafiyo, waayo in allaha yakfiru dunuuba jamiica. addoonku inta aanu dhiman hadduu toobad keeno dembi kasta uu ka toobad keeno ilaahay subxaana wa tacaala waa ka toobad aqbalaya, waa u dhaafaya, waa asturaya, ceebeyn maayo, fadeexadayn maayo, kuna ciqaabi maayo. dembigu ha noqdo kufriga iyo gaalnimada nooca u daran, marnaba ha quusanina. allah subxaana wa tacaala u toobad keena. shaydaanku wuxuu doonayaa addoomo inay quustaan si ay usii wadaan ka cadhaysiinta ilaahay, si xumaantu dhabarkooda ay u culaysiiso oo ilaahay la horgeeyo iyagoo xambaarsan dembiye fara badan, kadibna halkii isaga lagu xukumo naaru jahannama ay iyaguna galaan oo halkaa wehelu kaga dhigto. hadday noqoto xagga masaa'ibta iyo ibtilaaadka iyo imtixaanaadka dhibaatooyinka addoonka adduunyada kusoo maraya, iyaga laftooda allah subxaana wa tacaala wuxuu amray addoonku inuu mar walba ilaahay rajo uu ka qabo, rajaa inuu ilaahay musiibada iyo dhibaatadaasi uu ka dulqaado, farajna ilaahay subxaana wa tacaala inuu uga furo uga yeelo. waa ka ilaahay noo sheegay nabiy llaahi yacquub markuu waayo labadiisii inan yuusuf iyo kii kale labadiiba gacantiisa ay ka baxeen inaanu isagu quusan, mar walba uu naawilayo allahna uu ka rajeynaya ilaahay inuu soo celiyey inamadiisa. inamadiisii kalena waa kii ku waaniyey inaanay farajka ilaahay ka quusan ee ay rajaa la yimaadaan xagga qalbiga ah, dalabna ay ku daraan oo ay baadi doonaan. ya baniy اdhabuu fataxasasuu min yuusufa waakhiih walaa tayaasuu min rawxi اllah inahu laa yayaasu min rawxi اllahi ila اlqowm اlkaafiruun. inamadiisii buu la hadlaya wuxuu leeyay inamadayda ordoo taga yuusuf iyo walaalkii raadiya oo baadi doona. rawxu llah waa faraj llah, farajka ilaahay iyo ilaahay xaaladda inuu bedelo oo murugada ilaahay farxad uu ku bedelo, warwarkana deganaansho qalbi ilaahay uu ku bedelo, maqnaanshahoodana ilaahay uu ku bedelo inuu keeno. marnaba ha ka quusanina, waayo liannakum muwaxiduuna mu'minuun, waxaad tihiin kuwo ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan oo rabbi keliyeeya. waxaad tihiin caarifuuna biاllahi biasmaa'i wa sifaatih, kuwa ilaahay yaqaano magacyadiisa iyo sifaatkiisa ilaahay ku yaqaana. kuwaasi farajka ilaahay kama quustaan inkastoo xaaladdu ay ku adkaato. farajka ilaahay waxaa ka quusta alqowm اlkaafiruun, duulka gaalada ah. limaada bay uga quusanayaan? liannahum laa yacrifuuna allaha calaa xaqiiqatihi, ilaahay baanay si dhaba u garanahayn. waa jaahiluuna biاllah, allah bay subxaana wa tacaala jahli kaga sugayin magacyadiisa iyo sifaatkiisa. aw mukadibuuna liakhbaar illah, ama warka ilaahay uu sheegay oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala muqayiru laxwaal iyo ka xaaladaha bedela, farajkana keena, warkaa ilaahay baanay rumaysnayn oo ay beeniyaan.
qof garanaya ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa uu ka mid yahay alraxmaan الraxiim, magacyada ilaahay uu ka mid yahay alkariim, magacyada ilaahay uu ka mid yahay alqawiy, magacyada ilaahay uu ka mid yahay alqadiir, iyo صifaadka ilaahay magacyadaasi ay koobsadeen. laa yaqnaطu min raxmat الlah walaa yayأsu min rawx الlah, allah raxmadiisa kama quusto, farajka ilaahayna subxaanaه wataعaalى quus kama istaago. bal yacbud اllaha bاntidaari الfaraj wa xusuuli الraxma, allah subxaanaه wataعaalى wuxuu ku caabudaa oo cibaadaadka waaweyn kamida ilaahay farajkiisa inuu sugo. intidaaru اlfaraj waa min acdam الcibaadaat, inaad xagga ilaahay faraj aad ka sugto, waayo markaad xagga ilaahay faraj ka sugayso ilaahay waad ammaantay, awooddiisaad qirtay, raxmaddiisaad qirtay, ilaahay deeqsinimadiisa ayaad qirtay, ilaahay subxaana watacaala baahida aada u qabto ayaad ictiraaftay oo aada qirtay. ilaahay baad baryaysaa mar haddaad ilaahay faraj ka sugayso. waducaau min acdam alcibaadaat, ducaduna waxay ka mid tahay cibaadaadka u waaweyn ee ilaahay subxaana watacaala lagu caabudo, ee cibaadaad kaloo fara badanina ay ku guda jiraan oo su-aasha iyo dalabka oo qura aan ahayn. allah subxaana watacaala farajkiisa kama quusto qof ilaahay si dhaba u rumaysan, allahna subxaana watacaala yaqaana. bal wuxuu ku sifoobaa quwat rajaa, rajo xoog badan. waxaanu la yimaada alrajaa lmaxmuud, rajada la amaanay, wa huwa araja aladi macahu sacyun wa alab, waa rajada ay la socoto raadin uu raadinayo wuxuu allah ka rajaynayo, iyo socod uu u soconayo asbaabta uu la imanayo. hadduu rajaynayo ilaahay dembi dhaafkiisa yascى lidalika, arrinkaasuu ordaya u soconaya. ويsتغfir الlaha subحaanaه وataعaalى, yukhiru min qowlihi astغfir الlah, walaa yuصir عalى الذuنوب bal yaqlacu canha, dembigiina sii wadi maayo, bal wuu ka fuqaya, uu ka go-aya, waana ka murugoonaya, waxaanu go-aansanaya mar dambe inaanu dib ugu noqon. haddii masaa'ibtiiyo balaayooyinka ku dhacay allah inuu faraj uga yeelo uu sugaayo, uu rajaynaayo, balaayooyinka iyo masaa'ibta wixii ilaahay sabab uga dhigay suulitaankooda ka tegi maayo, uu la imanaya. wa acdamuha adducaa, balaayooyinka iyo masaa'ibta waxa ilaahay uu ku difaaco hadday dhacaanna addoomaha uu kaga kor qaado waxa weyn ducada allah subxaana watacaala in la baryo, oo lagu baryo biqalbin muuqin lilijaaba raajin lilfaraj, qalbi yaqiinsan ilaahay ducada inuu aqbalaayo, farajkana xagga ilaahay subxaana watacaala ka sugaaya oo ka rajaynaya. isla markaa carabka waxaanuu ka leeyahayna waafaqsan, wayatawaatau qalbu walisaanu cala adducaa, qalbigiisa iyo carabkiisa ayaa ducadan iyo baryadan isku waafaqsan. walaa yadcu llaha biqalbi illaahin gaafil, qalbi wax kale ku mashquulsan oo sii jeeda allah subxaana watacaala kuma baryo. qalbi soo jeedo allah qaabilsan, munkasir lilah, munطarix beyna yaday illaah, qalbi allah u jabsan oo allah subxaana watacaala ishordhigaaya ayuu ilaahay subxaana watacaala u ku baryaya. haddii sidaasi ay dhacdana farajka ayaa imanaya. kitaabka ilaahay oo qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam, qisaska iyo dhacdooyinka ku sugan waxaa aada ugu badan kuwa qofka muslimkaa ku beeraya rajo xoog badan, oo wuxuu arkayaa dad xaaladaha isaga haysta iyo dhibaatooyinka ku habsaday kuwa ka darani ay haysteen, oo rajada xoogeeyey, allahna subxaana watacaala baryey, rabbina xaaladoodii uu bedelay. qisatu nabiy llaahi yuusuf, allah subxaana watacaala wuxuu sheegay yacquub oo nebi ilaahay ahaa, yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim, nebi ilaahay oo nebi ilaahay u dhalay oo nebi ilaahay oo kale kasii farcanaa. inankiisii yuusuf markuu waayey
arrintaa inuu aada uga murugooday ilaa uu indhabeelay laakiin marnaba ma quusan faraj buu xagga ilaahay subxaana watacaala uu ka sugaayay allah subxaana watacaala rajadiisii waa u dhabeeyey faradda allahu lahu waladay warajaca allahu lahu lbasar allah subxaana watacaala labadiisii inan buu usoo celiyo bad qaba weliba xaaladoodu sidai ay kaga tegeen aaday uga wanaagsan tahay araggii oo nicmo weynana allah subxana watacaala uu usoo celiyey nabiy llaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam aabbihii oo indhabeelay muu quusan oo muu odhan cid hagta unu sameeya arag usoo noqon maayo bal kaana yarjuu min allahi subxaana watacaala an yarudda albasara ilaa abiih wuxuu allah subxaana watacaala ka rajeynaya uu ka sugaayey in aragga ilaahay subxaana watacaala uu soo celiyo wuxuu inooga warramay rasuulkeeni maxamed sida bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen 3 nin oo kamida ummadii inaga horeeyey oo socdaal ahaa inuu gabal u dumay roobna kusoo daatay god bay maciin bideen oo hoy ay bideen oo ay galeen ilaahay subxaana watacaala shay wal oo u qadaro u doono xikmad buu ka leeyahy cilmi ilaahay baana ka horeeya dhicistiisa dhagax weyn baa buurtii ka soo dhacay oo godkii ku daboolay awood ma laha dhagaxa iskaga riixaan cid maqlayso ay u qayshadaan ma jirto awalu khatwa tallaabada koobaad ay qaadeen si xaaladda adag ay uga baxaan waxay ahayd quwat rajaa mid waliba intuu meel iska jiifsaday godka kamida muu odhan khalaas astaslimu lilmowt geeridaan isu dhiibaya xaaladdan mid laga bixi kara maaha laysa waraaha ila almowt geeri mooyaane wax kaloo ka dambeeya ma jiro bal ayqanuu ana allaha subxaana watacaala qaadiru calى izaaxati hada alxajar canhum waxay yaqiinsadeen quluubtooda si dhaba u gashay allah subxaana watacaala inuu awoodo dhagaxa inuu ka leexiyo iyadoo makhluuq u yimi oo riixay aanu jirin allah subxaana watacaala ayay baryeen inahu laa yunjiikum min hada ila allah falyadcu kulu waaxidi minkum falyadcu llaha kulu waaxidi minkum bicamalih aladi yarjuu anahu qubila minhu xaaladdan allah unbaa idinka saari kara iyagii baa wada hadlayo sidaa isku leh mid walo idinka mida ilaahay ha baryo oo ilaahay ha ugu tawasulo ha ugu dhawaado ha ku baryo camal saalixoo uu sameeyo o uu isleeyahay ilaahay waa ka aqbalay oo ilaahay daraadii ikhlaas bad camalkaa ku samaysay sharciga ilahayna waa mid waafaqsan sidii bay yeeleen iyadoo aanay iman raaficaat wiishash cagafyo waaweyn bani aadam iskaashaday ayuu ilaahay subxaana watacaala dhagixii ka leexiyey wakharajuu yamshuun xataa iyagoo hoos u foorarsaday ama gurguuranaya kamay soo bixin si dhamaystiran baa marinkii uu ugu banaanaaday iyagoo soconaya ayay ka soo baxeen waynu aragnay dhulka dhulgariiradu ay ka dhacaan ama guryaha waaweyne duma dad laga quustay oo qaarkood 10 cisho ay maqnaayeen oo la islaa talow meydkooda un goormaa la heli doonaa oo ilaahay faraj uu u furay oo ka soo baxay ama laga soo saaray iyaga oo nool taasi qofka muslimka maxay ku beeraysaa quwat rajaa in mar walba rajadiisu ay xoog badnaato allah subxaana watacaala xaalkiisa inuu bedelo dhibaatadana inuu ka dulqaado rajada uu ku qabaa waxaa dhici karta qofka bani aadamka baahi inay ku dhacdo oo wuxuu cuno oo quudoo nafta uu ku celiyaba uu waayo waa xaalad aada u adag bani aadamka qaar soo waajahda waa inaanu qofku xaaladdaa lafteeda aanu quusan allah waa inuu baryo subxaana watacaala isagoo yaqiinsan inuu allah subxaana watacaala halkaa uu joogo ugu keeni karo cunto ta ugu fiican wuxuu inooga warramay nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ka ansaxay
nin iyo xaaskii oo ahaa dad saalixiina oo wanaagsan waxay cunaan bay waayeen ninkii baa baxay si uu bal wuxuu soo raadiyo intuu maqnaabay ilaahay bariday allahumma arzuqnaa bima nactajid wax badan ba ilaahay subxaana watacaala may weydiisan ilaah waxaad nagu arsaaqdaa waxoogay daqiiqa oo aanu qooshano khubus ama roodhi aanu ka dubano waa ducaa ka soo fushay qalbi soo jeedo oo allah xaggiisa u jihaysan ijaabadana yaqiinsan quwatu rajaana uu ku sifaysan yahay qofka xambaarsani rajo xoog badan ninkii baa waxba soo waayo gurigii kusoo noqday wuxuu arkay distidii ama weelkii qooshka oo buuxo afkaa taagan wuxuu arkay midxinkii ay ku ridqi jireen qabadinka si ay daqiiq uga dhigaan ama hadhuurhka iyo arbakida waxyaabaa lamidkaa oo isaguna shaqaynaya oo wax ridqaaya hareerihiisana raashin uu ka buux ka daatay moofadii buu eegayo waxaa ku jira hilib moofoobaya baa moofadii ku jira gabadhii buu la hadlo wuxuu ku uhi min ayna haada waxaan o dhan maxay ka yimaadeen yaa inoo keenay faqaalat risqu min allah waxay tihi waa arsaaqad ilaahay subxana watacaala uu ina siiyey wuxuu sameeyey raashinkii midxinka ama baalka raashinka lagu ridqo hareerihiisa ku daatay ayaa wuxuu bilaabay inuu ururiyo sida muuqatana waxoogay dabakawarwara baa jiray maadaama baahida daran iyo gaajadaas ay soo martay xusulbalintan daadatay horta ururiyo meel ku shubta laakiin taasi waxay keentay baraka la-aan oo qofku arsaaqada ilaahay subxaana watacaala waa iska daba imanaysaa ilaahay baa keenaye ilaahay inta uu siiyo inuu marba qiyaaso talo goormay dhammaanaysaa talo waa intay leeg talow dabadeed maxaad cuni inuu idhaahdo maaha waktigaa uu taagay quudkiisii mar hadduu hayo alxamdu lilah wixii ka dambeeyana xagga ilahay waa inuu ka rajeeyo uu ka sugo asbaabtii shareecadu u ogoleydna isagoo la imanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi isagoo ninkaa ka waramaya low tarakahaa ladaarat ilaa yowmi alqiyaama hadduu iska dayn laha o aanu taabteen araxa oo baasha raashinka ridqaysa sidaasun bay u wareegi leed ee u shaqayn lahayd oo iyagoon iyagu wax raashina aan ku shubin daqiiq ay dubtaan ay usoo daadin lahayd laakiin taataabashada uu taataabtay raashinkii uu ururiyey ee nooca markaa dabakawarwarkii uu la socdo ayaa barakadii ka qaaday walihada waa ka rasuulkeenu caaisha radi allahu canha ku odhan jiray laa tuuki fa yuuki llahu calayk ha qiyaasin raashinka guriga yaalaha miismiisin oo ha qiyaasin waa risqi ilaahay ku siiya ha yaalla maalinba intaad u baahantahay min gayri israaf adoon israaf sameynayn ka isticmaal laakiin ha miisin oo ha tirinin odhan talo imse maalmood bu inagu filay talo imse maalmood intii la cuni laba hadhay waxaa iska daa dabaka warwarka noocaasa ilaahay baa arsaaqadaada ballan qaaday ha ka warwarin rajada xoogee waxaa ka mid a qisaska la yaab kale ee qofka muslimkaa quwatu rajaa ku beeraaya ee ilaahay subxaana watacaala kitaabka qur-aanka inoogaga waramay rasuulkeeni maxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa uu ku sheegay qisatu nabiy llaahi ayub qisatu nabiy llaahi ayub ibtuliya wamtuxin nabiy llaahi ayub waa la imtixaam waxaa lagu imtixaamay bisuqmi اlbadan wa faqdi اlmaali wاlwaladi wاlahl waxaa lagu imtixaamay in jirkiisii xanuun ilaahay u ku riday waa nebi ambiyada ilaahay kamida maal iyo walad ilmo wuxuu lahaana in laga qaaday oo uu waayey faramadhnaan uu ka soo istaagay taasi waxay noo muujinaysaa awalan imtixaanka adduunka ku dhaca intuu addoonka ku dhaca intuu adduunyada dusheeda joogo inaanu mar walba calaamadu ahayn inuu addoonku yahay addoon xun oo ilaahay ka fog bal arrintu cagsigaa bay noqon kartaa waa ka yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ashaddu nnaasi balaa
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل امتحاanka ugu daran waxaa addunyada lagu mariyaa nebiyada dabeetana waxaa imtixaanka dadku u kala bataa say u kala wanaagsanna ilaahay u kala dhow yihiin waa su-aal la isweydiin karo maxaa ilaahay subxaana watacaala dadka ugu jecel yahay ugu dhow uguna toosnaanta badan imtixaanka ugu daran uu mariya liyukafir allahu canhum sayi'aat wayarfaca lahum darajaat waa si ilaahay subxaana watacaala dembiyada uu uga maydho oo aakhiro ay u tagaan iyagoo wax dembiya aan lahayn waayo ibtilaa-aadka iyo masaa'ibtu waa min almukafiraat addoonku hadduu sabru ku ixtisaabo waxyaabaha dembiyada lagu dhaafo ayay ka mid yihin si ilaahay darajooyin kor uu ugu qaado wakadalika yumaxisu allahu cibaadahu ilaahay addoomihiisa waa kala shaandhaynaya yabtaliihim si ay u kala baxaan ka iimaanku uu ka dhab yahay iyo ka sheegatada iska ah ee iimaanku aanu ka dhab ahayn nabiy llaahi ayub daama calaa hadihi alxaala 18 sana suu rasuulkeeni maxamed alayh الsalaatu wasalaam u sheegay qur-aanku tirada sanadada ma sheegin lakiin rasuulkeeni maxamed baa sheegay 18 sanadood ayuu xanuunsanayay fafaaraqahu kulu axad walam yabqa macahu ilaa zawjatuhu wa rajulaani min asxaabih cidi kumay soo hadhin dadkii oo dhan way iskaga fogaadeen waxaa ku soo hadhay xaaskiisii oo meel aan ka tegina rogrogaysay iyo 2 nin oo ay asxaab ahaayeen maalintii 2daa nin laftoodu markii dambe waxay soo istaageen quus ilaa ay yidhaahdeen ama midkood u yihi maalintii u dambeysay addoonkani wuxuu dembaabay dembi aada iyo aada u weyn nebiga ilaahay baa waxay ku tuhmeen ibtilaagan inuu ugu dhacay macsiyo iyo khalad uu galay faadhara allahu lahum gayra dalik wacajala allahu faraja ayub ilaahay wuxuu u muujiyey waxa ay maleeyeen wax ka duwan farajkiina ilaahay nebi ayub waa u soo dedejiyey nebi ayub wuu luuday gabadhiisii baa garab gashay uu kaadi tegay way ka yaro hadhay si uu bal u xaajo guto meeshii ay ka sugaysay nebi ayuubkii aadka u xanuunsanayey dhibaatadu dushiisa ay ka muuqatee jidhkiisu uu dhammaaday waxaa kaga soo baxay nin aada iyo aada u qurux badan oo xanuun iyo dhibaata aanay ka muuqan bal u fiirso xaaladdu sida ay isu bedeshay wakti aada u kooban gudihii waa ilaa ay garan weydeyba oo nin kale ay mooday oo ay ka wareysato ay tihi yaa cabdallah hal ra'ayta nabiy allahi lmubtalaa addoonkii ilaahayow halkaa aad ka timi miyaad ku aragtay nebigii ilaahay la imtixaamay faqaala ana huwa ana ayub isagii baan ahay buuhi ayub baan ahay anigu xaaladdu siday isu bedeshay ayay taasi inoo muujinaysa allah subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim nabiy llaahi ayub calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo xaaladda adagi ay soo martay haddana marnaba inaanu quusan kaana yantadiru lfaraja min allah watasafa biquwati الraja faraj buu ilaahay ka sugaayay raja aada u xoog badanna waa ku sifoobay qalbigiisu mar walba wuxuu naawilayo uu sugaayay ilahay xaaladdan inuu bedelo وأyuba id naadaa rabba أnii masaniya الduru وأnta arxam الraaximiin ilahay wuxuu uhi nebi maxamed isagoo la hadlaaya xus nebi ayub ummadaadana u sheeg wakti uu ilaahay u dhawaaqay subxaana wa tacaala rabbi uu baryey muxuu ilaahay ku baryey biamreyn 2 arrimood alamr اlأwal bidikri اlxaali waidhaari اlfaaqa wa biraxmat اllahi subxaana wa tacaala alatii laa tafuuquhaa raxma arrinka koowaad ee ilaahay uu ku baryi ugu tawasulay waa maxay xaaladda adag ee uu ku jiraa buu ilaahay u sheegtay subxaana wa tacaala walxaalu mima yatawasalu bihi ilى اllah xaaladda adaga addoonku uu ku jiraa
waxyaabaha ilaahay loogu tawasulaa bay ka mid tahay. baahida uu qabaa buu ilaahay subxaana watacaala u sheegay dhibaatada haysata. waxaa kaloo ilaahay uu ku bariyey sifada uu leeyahay rabbiya sifatu raxma wa anta arxamu raaximiin. markii rajadiisu ay ahayd mid xoog badan, ducadiisuna ay ahayd mid qiimo badan, jaa allahu bilfaraj, ilahay baa farajkii u keenay. fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min dur. allah wuxu uhi ducadii baanu ka aqbalnay, wax allaala wixii dhibaato ku sugnayd baanu suulinay. wa aataynaahu ahlahu wa milahum macahum, ehelkiisii iyo awlaadiisii baanu siinay buuhi ilaahay subxana watacaala markii hore u waayey, iyo kuwo kaloo weliba dheeraada oo markii hore aanu lahayn. raxmata min cindina wa dikraa lilcaabidiin. ilaahay subxaana watacaala laba arrimood buu ku sababeeyey. awala, allah raxmadiisa isbedelka noocaasi uu ka dhashay. raxmat llahi waasica, waman carafa wuscaha laa yaqnad walaa yayas. allahna raxmadiisu waa ballaarhanta. ballaarnida raxmadda ilaahay qofka gartaana ma quusto, mana joojiyo baryada ilaahay u baryaayo. walaa yanqaticu rajaau can illah, rajadiisuna allah kama godo. wa dikraa lilcaabidiin, allah subxaana watacaala isbedelka noocaasa uu sameeyey kuwa ilaahay caabuda ee quluubtoodu ay nooshahay ayaa isbedelkaasi waana uu yahay. muxuu awalan inagu waaninayaa inaynaan ka quusan farajka ilaahay, rajadana aynu xoogayno, xaalad kastaoo adkaatana aynaan isdhiibin, allahna subxaana watacaala aynu barino oo aynu weydiisano tagyiir alxaal. nabiy llaahi yunus calayhi الsalaatu wasalaam waynu ogsoonahay, wa ina yunusa lamina almursaliin, wuxuu ka mid ahaa rususha ilaahay subxana watacaala u diray. qoomkiisii buu ku yihi, walaa shaka inay taasi biwaxyin min allahi ahayd. markii ay beeniyeen ay rumayn waayeen, 3 maalmood kadib cadaabka ilaahay baa idiin imanaya. imaam alxaakim baa fi lmustadrak ku wariyey. waxaa dhacday markaa inay allah subxaana watacaala baryeen oo ay toobad keeneen, xataa faraquu bayna alwaalidati wa walad. wax kastoo isdhalay bay kala kaxeeyeen, ilmaha iyo hooyadii, si ilmuhuna uu ooyo, hooyaduna ay u ooydo maadaama ilmaheedii ay weyday. xooli isdhalay bay kala kaxeeyeen. fairtafacat ilaswaatu wakhtalatat, qayladii iyo cidii xoolaha, caruurtii ooyeysay, baryadoodii ilaahay ay baryayeen inaanu ilaahay cadaabkiisa aanu ku dejin, ilaahay subxaana watacaala waciidkiisa uu baajiyo. amaan bay ilaahay u tahay waciidka inuu baajiyo, oo addoomuhu hadday sabab la yimaadaan ciqaabkii uu yihi waan idin ciqaabaya, ilaahay subxana watacaala inuu ka badbaadiyo. allah subxaana watacaala ciqaabkii waa qoladaa waa ka leexshay, oo cadaabkii ilaahay kuma soo degin. nabiy llaahi yunus sida muuqata sheeduu ka eegayay bal qoomkiisa waxaa ku dhaca, wixii ilaahay uu qoladaa ugu goodiyey ayuu sugaayay inuu ku dhaco. walam yaxsul dalika waintahat اlayaamu 3. arrinkaasi ma dhicin, 3 maalmoodna waa dhammaadeen. siduu rasuulkeenu sheegay, qoomkiisa caadadoodu waxay ahayd ana man akbara bkhabri laa bayinata lahu calayhi xukima calayhi bilkadib uma qutil. qofka sheego war aanu caddayn u haysan, waxaa lagu xukumaya inuu beenaalan yahay, kadibna waa la dilaayay. jazaau lkaadib cindahum wuxuu alqatl. qofka been sheega waxay ku abaalmarin jireen inay dilaan, markaa meeluu ku noqdaa ma jirto. soo kuma odhan qoomkii 3 maalmood kadib oo cadaabka ilahay idinku soo degaya. cadaabkii ma iman, 3 maalmoodna waa dhamaadeen. khalaas hadduu tago way dilayaan. ila waxay u qaadanaya inuu been u sheegay, beenna ma sheegin, laakiin ilahay baa subxana watacaala xaalkii bedelay. maxaa markaa dhacay? id abaqa ila alfulki اlmashxuun fasaahama fakana min almudxadiin. wuu cararay qoomkiisi isagoo ka baxsanaya, badda xeeligeeda wuxuu ugu tegay dooni taagan,
ومحملة بأثقال aad u raran culays badan uu saaran yahay doontii buu raacay doontii badda dhexeeda markay marayso qirinqiir bay gashay xaalad adag waxay noqotay in laga khafiifiyo culayska oo loo qori tuurto badda qofna badda ku dhici maaye ciddii doonta laga tuuri lahaa si ay u badbaado in qori tuur lagu soo saaro 3 jeer baa la qori tuurtay nebi Yuunus baa kusoo baxay mar labaad waa isagii mar saddexaad waa isagii فساهم فكان من المدحضين كوي دونتا laga tuuray ayuu kamid noqday فالتقمه الحوت وهو مليم نبيري baa afka u dhigtay oo liqay isagoo mid sameeyay ficil lagu canaanto laana qoomkiisii uu ka cadhoodo uu ka tagay بغير إذن من الله iyadoo ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu u fasixin ولهذا بقى النبي محمد إلهي وكود أرنكا kaga dayana ولا تكن كصاحب الحوت وكإلهي النبي محمد كوري وصاحب الحوت هو النبي الله يونس والنبي يونس لكن أرنك نوع عاسى قدرك إلهي النبي قاوسية شرفتي وحباه صغر مايو نبي قال نتاو كدقة إنه قفل هذا النبي يونس ما دام السيدة ويالي أنا كخير بدل لا يقولن أحد إني خير من يونس ابن متى قفريان ورانا كخير بدن يونس ابن متى نبي قال إلى يونس ابن متى لو ركري المهم نبي قاصا لقي وين وكسونا هاي قف نبي لقي marka dabciga bani aadamka la eego wuxuu isku xukumaa khalaas inuu dhintay oo xataa hadii meesha dhexeeda uu ku sii noolaado aanu halka ka bixi karin dadkiina waxay u qaataan khalaas inuu dhintay oo sidaasi uu ku tagay qofkaas laakiin xaaladda adag ilaahay qofka faraj waa uga yeeli karaa waana sida dhacday wadhannuuni id dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira calayh فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى وحده واحد حسطان ذنون صاحب الحوت كي نبرق ولقي صدع على يسمو قوم كيسي وكتقي نبرق أسيا لقي نبرق نحديثة أيو إلهي كبري دعا الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة فرج كإلهين ويمادنا كموقوصا فنادى في الظلمات مقدي قرما مقديوك نحكي مقدي هبينك مقدي مدوغي بدا يا مقدي علوشا نميرك وكتشرو دعا الله بماذا؟ بالتوحيد إلهي التوحيد كيسو كبري وهو أعظم ما يدعى به الرحمن الله الرحمن كوحل قبري انت توحيد كيس الله قراءة أويد لا إله إلا الله وقل هدات كعيل علسو لا إله إلا الله وحده لا شريك لك لا إله إلا أنت سبحانك ذنبي قناة قراءته إني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى فرج كواكينية وأنا الدعاء تاس هذول السؤال بالله إيمانه إلى حالتنا قصار بان أورا تالفت هذا الدعاء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دخلت كيسنا وقرت اعترف بذنبه فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دعاء وكاقب الله يقول إلهي سبحانه وتعالى وروركي يا والبهاركي يا مروقدي يا نباتدي هاي ستين وكبت بادن ما أرني السقا وقاربا وقف مؤمن أنا ورجين كرين وكذلك ننجي المؤمنين ساسان مؤمنين توبت بعد النابور إلهي سبحانه وتعالى إذن على كل مؤمن أن يقوي رجاءه وأن لا يأس من روح الله مرة دي الله وركا والشاقي مؤمن كاستوحى لقد بول إنه الرجاء حوقيه فرج كلا يرانك قوسا قصة حيابا ينوم وشنا سألا يابك لو حكم بذا فيها رد على الذين يقال لهم عقلانيين وليسوا بعقلانيين حقيقة كوا دادكو عقلانيين تكو شيغان عقل قودي الرأي قود الشرعي إلهي كهر مريا كوا سير الدين كتح وما حي أورانيان كيف سيودعي كرتا
qof waxa weeyaan xayawaan calooshii ku jira oo haddana xayawaankaasi bad gunteed uu la jiifo siduu u noolaan karaa xaguu oxygen ka helaya markii odhanaya soo ma bilaa oxygen lama noolaan karee taasi maxay ka dhalatay ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ayna rumaysnayn marka horeba oxygenta yaa abuuray yaa bani aadamka iyo noolayaasha oxygen ku noolaysiiya allaha iyagoon jirsiiyey bilaa oxygen buu noolaysiin karaa in kunta mu'mina billah haddaad ilaahay subxana watacaala rumaysan tahay siduu doonaanu ilaahay oxygenta lafteeda ku gaadhsiin karaa rabbi subxaana wa tacaala nabiy llahi zakariya waxaynu ogsoonnahay inuu da ku gaadhay ubad la-aan waa ka ilaahay subxaana wa tacaala xaalkiisa u sheegay iyadoo ilaahay uu og yahay laakiin uu ku tawasulaya qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayba walam aku biducaa'ika rabbi shaqiya lafahaygii baa daciifo qofku markuu weynaado lafihiisana way daciifaan walihada si sahlan inuu jabaa dhici karta hadduu jabana inuu kabmaa way adkaata madaxiina uu isla oogsado ciraa caddaysay uu caddaaday sidii dab uu ka baxay oo kale iyadoo aan sidaasi da u noqday oo aan u taag daranahay oo aan gaadhay wakti aanay dadku inta badan ubad xagga ilaahay ka sugin gabadhiina dee lagu xukumay inay tahay ma dhalays kaanat imra'atii caaqira si aayadda dambe ku xusan xaaskayguna ma dhalays bay noqotay laakiin ilaahay oo baryada aan ku baryo iguma hoojisin waxa aan ku weydiisto waad isiisaa xaaladdu inkastoo ay adag tahayna ilah waad bedeshaa وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إلهي سبحانه وتعالى بريء إلهي قبلا هيقا دقن بدان فرع لهين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إلهي حالة دي أتكيد وابدلي دعاء دي بكا أقبل يحيى نوهي بين نبول إلهي في سورة مريم الله سبحانه وتعالى محوري يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا زكريا وحنو كوكو بشاريننا إنم isagoo dhalan baaba ilaahay magaca u sii bixiyey magaciisa waxaa la yidhaahdaa yaxya cid isaga la magaciina adduunyadan hore uma soo marin oo magac isaga ku bilaabmay weeye nebi baanu ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay nebi ciisiye isaguna habar wadaag bay ahaayeen labadooda hooye ayaa walaalahaa oo ibnay khaala waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay sida xadiidu lisraa walmicraaj ku xusan maanta waxaa adduunyada dusheeda inala jooga oo inaga inaga mida dad ay haystaan xaalad adag qaar ubad la-aan baa haysa waxaa laga yaaba maalmo markay warwareegeen dhakhaatiirta ay ku warwareegeen inay quusteen oo ilaahay faraj inuu u yeelo ay ka quusteen weligood inay bilaa ubad ahaanayaana isku xukumeen taasina ma aha arrin sax inkastoo ay da gaadhaan waa inaanay farajka ilaahay ka quusan allahna subxaana wa tacaala baryadiisa waa inaanay joojin hada nabiy llahi ibraahim wa zawdu allah subxaana wa tacaala iyagoo gaboobay buu siiyey inamo isxaaq iyo ismaaciil markii loo bushaareeyey waa tii yaabtay xaaskiisa aalidu ana cajuuz wahada bacli shaykha maano islaan gaboodee ayaan dhalaya ninkaygina zawjkaygina isagoo odaygaa gaboobay ah waxay malaa'igtu ugu jawaabtayna waad garanaysaa qaaluu atacjabiina min amri illaah ma ilaahay amarkiisaad ka yaabaysa dad gaboobo waaweyn allah awood buu u leeyahay inuu ubad siiyo xaalkooda u bedelo dad baa xanuunsanaya oo dhakhaatiirtu qaarkood ma rajo geliyaan dadka sharciguna wuxuu sheegayaa caqliga saxdiina uu keensanaya
qofka xanuunsanaya inkastoo xaaladiisu ay adag tahay inaan la quus gelin bal la rajo geliyo rasuulkeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu odhan jiray qof xanuunsanaya markuu booqdo طهور لا بأس إن شاء الله waxaa lagaaga dhigayaa dembi dhaaf xanuunkan wax dhibiina in sha allah dhici maayo waa rajo gelin dhakhtarka ku idhaahdo qofka khalaas rajo ma lihid haddaad ugu badato bil ama 3 bilood baad sii noolaanaysa geeri ku talagalo iska sug dhakhtarkaas wuu khilaafay aadaabtii iyo dhaqankii nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu ka baranay wuxuu og yahay inuu isagu ma jirto farajkuna xagga ilaahay waa ka iman kara rabbina axwaasha waa bedelaa waana dhacday taasi oo nebi ayuubba ku cibro qaada qisadiisa waktigan aynu joognana dad baa jira dhakhaatiirtu ay sidaa u quus geliyeen ay ku idhahdeen khalaas waxaan garanayaa maantaaba ninkii arkay oo dib baan u xusuustay muddo ilaa 10 sanadood ka hora ayaa xajka waxa aan ku arkay nin wada xaaskiisa wheelchair buu ku riixayaa baaskiilka dadka curyaamiinta lagu riixo dhakhaatiirta sacuudiga ee dadku ay uga safraan ee maalka badan lagu bixiyo ayuu geeyey waxay ku dhahdeen khalaas dhabarkay khalaas ka tag qalliin culus bay u baahan tahay waliba allahu aclam siduu qalliinkaasi u najixi doono xoolo uu qalliinka ku mariyo iyo camaliyadaana mu haysan wuu iska soo celiyey allah buu baryay subxaana watacaala muslimiintuna u duceeyey hargeysuu ku soo celiyeyo obolos buu u geeyey doctorkan obolos la idhahdo waxay dhakhaatiirtii waaweynaa ee qalab nooc kasta haystay ay arki waayeen ayuu isaga ilaahay tusay waxaana yaaba wax kale maaha bui waa tiimbay lafood da wuu siiyey way durdurisay maantaan weydiiyo ka warran baan idhi wuxuu yihi caafimaad taama bay ku sugan tahay kuwaasina waxay ku yidhaahdeen aniga idiin sheegay waxaan dhegaystay nin imaam masjid ah oo sheekh oo xaafid alqur'aan oo xanuun xumi beerka uu kaga dhacay oo dhakhaatiir badan isu maray kii u dambeeyey uu ku yidhi haddaad u badato bil baad noolaanaysa shahr waaxid haddaad dardaarmayso dardaaran dayma haddii lagu leeya iska bixi haddaad doonayso dhulkiina inaad ku dhimato masri buu ahaa meeshuu deganaano jidaaha hore isaga sii tag halkaa geeridaa kugu timaadeen saasuu ku yihi laakiin waa insaan daciifa oo qeybka aan ogeyn qofka waxaa kusoo maqana waraaruhayn khaladna galay oo farajkii ilaahay ka quusgeliyey laakiin allahu subxaana watacaala warkiisii buu dhabay wuxuu leeyahay ninkaasi cunto ma cuni karo waayo beerkii baan shaqaynahayn qol gurigeygii kamida ayaan galay aabbahay baan u sheegay ku ihi sidaasaa jirto dhakhtarkii saasuu igu ihi aabbahay wuxuu yihi qalbigu u xoojiye o waxba aabaha warwarin buu ku yihi miyana aro qof gurigiisii ka baxay oo daqiiqada kadib iyadoo gaari kala jaray oo mayda gurigii lagu soo celiyey cawadaada adaabu dhakhtaru ku ihi bil baabaad sii noolaanaysa arinii min nafsika ma tuxibu an talqa allaha bihi hal arrinun baan kaa doonaya waxaad jeceshahay ilaahay inaad kula kulanto oo ilaahay xaaladaad jeceshahay adoo ku sugan ilaahay in lagu horgeeyo itusi macnaa waktigaa ku hadhay ka faa'iideyso oo ilaahay subxana watacaala qaabil sidii buu yeelay maa-u zamzam casal malab xabatu sawdaa intaasaan inu isoo dhiga allah baan baryay buuri subxana watacaala waxaa hadalkiisa kamid aha fakhaatabtu llaha kaananii araahu allah baan ula hadlay sidoon arko oo kale waxaa hadaladiisa kamid ahaa allah baan ku uri ilaahay ow addoonkaagani dadka xanuunsanaya u yimaadee qur-aanka oo kutufwad shaafiyi jirta maanta isaga ayaa xanuunsanaya oo shifaa ku weydiisanaya ilaahu shaafi maalmo yar kadib bishiiba intaanay dhammaan isbedel baan dareemay inaan cuntadii uhunguroonayo aan doonayo xaaskaygii baa doontay inay iga celceliso aabbahay baa ku uhi si kolleyba uu dhimanayaahe maxaad uga celinaysaa iska sia iska cune kor buu noolaanaya soo tii bisha loo qabtay
wuxuu yidhi dhakhtaro walaalkaya ayaa la xidhiidhay dhakhaatiir badan dhakhtar masar ku yaala ayaa waxay ku dhahan waxa xidhiir la leenahay dhakhtar maraykanka ku yaala markaa bal waxaan weydiinaynaa beerka in la bedeli karo natiijada waxay noqotay waa la bedeli karaa ha yimaado laakiin xaaladiisa hadda way soo wanaagsanaad sidii hore way ka fiicanta waraaqii baan dhakhtarkii u diray buu yihi markuu waraaqii akriyay dee sida beerkiisu taalif uu yahay mid baaba-ay dhakhtarku wuxuu sugayay dee qof la sido oo dhulyaala in loo soo geliyo lugahaygaanoo ku soconaya dhakhtarka u galay buu markaasuu yihi ayna almariid ninkii xanuunsanayay me waa aniga ha igu ciyaarina ninkii xanuunsanayay me ee waraaqiisa lay keenay waa aniga baaritaan buu sameeyey wuxuu yihi dhakhtarkii waxaa kuugu jira beer qof yar oo u muuqda bil ka hor meelaha in lagu geliyey oo aada u caafimaad qaba subxaanaka ya rabbi dhakhtarkii baan kusoo noqday bui kii bisha u qabtay ihi bil dabadeed waad geeriyoonaysa waxaan ihi weli aniga noole bali baadh waxba umuu sheegin u baadho wuxuu ku yihi man gayara laka lkabid beerkii yaa kaa bedelay gayarahu rab lcaalamiin baan ku ihi bui makhluuq iyo bani aadam iga bedelay ma jiro allah baa subxana watacaala bedelay wallahu alaa kuli shayin qadiir allahna shay walba wuu awoodaa marka adduunyadan addoonku intuu joogo dhibaatooyin iyo masaa'ib iyo imtixaanaad baa soo maraya waa inuu sabro rajadana aada iyo aada u xoogeeyo fursadahana uu ka faaidaysto bishan qaaliga aynu ku jira ay kamid tahay qof kasta oo dhibaato ka cabanaya inuu qalbigiisa allah si dhaba ugu xidho oo rajada uu xoogeeyo oo ilaahay subxana watacaala biquwati raja uu ku baryo allah baynu subxaana watacaala muslimiinta dhibaataysan dhammaantood u weydiina dhibaatada inu ka dulqaado allah waafajiyo inay ilaahay baryaan qofka dhibaataysan ilahay ducada waa ka aqbala aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa alard a ilaahu maca allah allah subxaana watacaala masaaibta iyo dhibaatooyinka haynooga dhigo uhuur iyo dembi dhaaf kuwa ku sabro ku ixtisaabana ilahay haynooga dhigo wanasal llah alcafwa walcaafiya ilahay baynu weydiisanaynaa dembi dhaaf iyo caafiya ilahay masaaibta iyo dhibaatooyinka inuu naga badbaadiyo wasala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu baaraka allahu fiikum ajmaciin